kadib markii midowga musharaxiinta ee war-saxaafadeed ka soo saareen shir maalmihii la soo dhaafay uga socda Muqdisho loogana hadlayay geedi socodka doorashooyinkii daafurlaan la'aanta ay cadeeyeen in waxa socda aan lagu tilmaami karin doorasho ay tahay boob qaawan oo dalku horseedi karta qallaasa siyaasadeed xasilooni darro iyo nabadgelyo la'aan ayaa waxay soo taraya baaqyada ay jeedinayaan siyaasiyiinta ururada bulshada iyo shacabka Soomaaliyeed midowga musharaxiinta ayaa sheegay inay dhisi doonaan golo qaran oo ku meel gaar ah dalkana gaarsiiyo doorasho iyagoo dawladda garab socota dawladda hadda jirta la dhisi doono haddaba shacabka Soomaaliyeed siday u arkaan qaabka ay u socoto doorashada golaha shacabka iyo mowqifka midowga musharaxiinta ay gaareen waa kuwan qaar ka mid ah oo keenin la hadlay iyagoo dalbada in doorashada dalka ay noqoto mid daahfuran oo cadaalad ah qaabka doorashada ku bilaabatay iyo mataqaanaa asaasaanta muuqata ma ahan mataqaanaa bulshooyinka Soomaaliyeed mid ay ku qanacsan tahay ما هن متقنا حر يا حلال ما هن ودور شو إسك عدها هاي إن لنا عبدنا هاي وأنا كحنا هاي إن إنسان وكلا دور شو بعده نمدو بدن جرو متقنا ما دام متقنا جدنا قاب كده واحد السودان ما أنا متقنا كرجين إن الحكومة دي متقنا لو مني لا إدمن دور شو إن خبطه إن قاب كان متقنا وأجازته واحد متقنا رالنا وقلنا شبه ترادو قارن وحن دلعن أدياد وين وسجدين رئيس وزراء حكومة الفدرالية محمد حسين روبلي ما أنا كفيلين متقنا مسؤولي درادان إنه سمين هايو أما دعيسو متقنا دور الشباب أو متقنا أو عد أو دت كردن متقنا وجدان أو مال عد متقنا dad aan la aqoon intaqana xataa aan ahayn dadkii qabiilada intaqana wax dooran lahaa ka dhashay aan ahayn intaqana inay yimaadaan hoolalka intaqana dad doortaan waa qeyr mas'uulnimo aad u weyn oo intaqana doorashada hadda socota intaqana ka muuqata mana ku qanacsan hadana shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegnaa wasaare Maxamed Xuseen Roble in arintan wax ka qabto wax ka bedelo kana hadlo intaqana حقا وكالله وسكجن بنين وصنقنين متقنا نين لوطو ونقدر نين أسجع وجامية أو متقنا leadership أو متقنا أو كسب واجب كيس مشاركين تام متقنا شلنا إن متقنا يجنا تهان دورشة بنا رمنا أو عري حلالة ما أنت متقنا نسوي استعان كلنا دولة بسنا بس معقول ما أنت ميس كل هذا الكلام قدامي حل هالوجود ما تسمع معقول ما وقلتوا ما دولته حكم قلت لما دايو لكن وعلينا متقنا حالة لجورة ديارنتا يعني دولة جارة هي متقنا معمول جارة وحيا لسن نسيحل أرنتا متقنا هوس الله عليه نيني ورأي جاس أو ملوك المشرحين تا كل سايان دولة كمل جارة ورأي أن تاجر سنة هاي محايا لي دولة هذا جرتا دور جارة وحلا قبتي دورشها لقبها الليري هذا نبوب يو وحبا magaalada ka jiro in dadkii la kala boobayo hebel waa jecelahay iyo hebel ma jeceli marka waa soo dhaweynaa wax naga samata bixiyo culayska maanta jira horta ra'iisul wasaaraha in laga warsugo maadaama ay la kulmeen aniga way la fiican tahay balse haddii ra'iisul wasaaruhu nin wanaagsan aan kulli hadda u aragnaa haddii laakiin ra'iisul wasaaruhu oo barnaamijkii oo ballan qaado wax ka keeni waayo in dawlad ku meel gaar la dhiso oo wadanka la badbaadiyo anigu waa qabaa tala ahaan أي لبدو مركب ودك ما يلي سمحنا في الكرة والله إني ورت وعلاس لكن مروا البابا موقتها وعلى قفير يعني إن عوناجا دولة وناكسن عن إلهي ورت كبرينا بلس كل اللي بدلوا هدي لا ديسو واحد يخاف كستوى سجرا كرا أيضا كقول سجن هدي إلهي راوي حدا نيو هذا الدورة شذا الصعد أنا قلت دورة شباب دي كرنبا والدورة شبابا والدورة شحوجة balse meesha saldhiga taa ogaahna hadii la qadaro cid xoog lagu maamulo ka inaysan jirnaa qiyaasa waxa sii badanaya walaaca laga qaba qaabka ay ku socoto doorashada golaha shacabka oo ka bilaabatay maamulada qaar iyadoo laga cabanayo kuraasta qaar in boob lagu hayo midowga musharaxiinta madaxweynenimo ee Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaare Roble ka codsaday in la hakiyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee ka soconaya dalka taas oo ay ku tilmaameen boob qaawan oo dalka u horseedi kara qalalaase siyaasadeed waxa ay sheegeen in walaaca ay ka qabaan doorashada ay si gaar ah uga hadleen madaxda maamul goboleedyada isla markaana ay kulamo la yeesheen gudiyada doorashada iyo ra'iisul wasaaraha balse aanan waxba laga qaban arrimahaas ayaa waxaan ka wareystay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah golaha midowga musharaxiinta ee Soomaaliya qadka telefoonka ayuu igu waramay waxaana marka hore weydiiyay bal nuxurka warmurtiyeedkooda
war-saxaafadeedkeena wuxuu ku wajahnaa in aan shir ku lahayn maalmahan magaalada muqdisho haddaan nahay midowda musharaxiinta oon uga hadlaynay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha socodkii doorashooyinkii dalka la filayay inay ka dhacaan. waxaa noo soo baxday in wax doorasho ah oo dalka hadda ka socda aysan jirin markii aan baaritaan dhaba ka samaynay sida looga tegay odayaashii dhaqanka, sida aan ergo loo xaraynayo aysan jirin ama loo xulayo, kuwo cusub u tartami lahaa loo diiday, inay dadkii madaxweynayaashii dowlad goboleedyada u dayrinayaan leeyahay kursi kuuma haayo ee iridda ka bax, in gudiyadii fiid iyo sid waxba iska maqlaynin, guddigii xalintii khilaafaadka uu iska noqday wax iska magaca oo dadkii hadda dacwadaha u geystaan waxba laga soo qaadin. marka intaas markay noo soo baxday dadaalaan isku daynay, madaxda dowlad goboleed aan la hadalnay, gudiyada doorashada aan la kulanay, ra-iisul wasaarihii aan la kulanay, cid kastana inay jirto dhibaato intooda badan waa noo qireen, wax ka qabanayana ma jiraan. marka dee annaga waxaan aragnay arrimahaas inay halis ku yihiin xasiloonida dalka. ka midowga musharaxiinta ahaan hore waad u soo dhoweyseen in ra-iisul wasaare Rooble uu hormuud u noqdo arrimaha doorashada, dhowaana sidaad sheegtay waad la kulanteen oo ballanqaadyo ayuu idiin sameeyey. maxaa haddana keenay baaqa aad ku qaadacaysaan doorashada? والله رئيس وزاري waa la kulanay sax waaye, kulan saacado dheer qaataan daraad aan la yeelanay. dalkan inay wax ka socdo doorasho ahayn anaga waa u gudbinay, asagana ma uusan diidin. laakiin meesha ay dhibaatada ka jirtaa waxay tahay wuxuu ra'iisul wasaarihii noqday dhaqankiisii in uu yiraahdo wixii waa u gudbinayaa guddiga doorashada waa la hadlayaa, dowlad goboleedka waa u gudbinayaa waa la hadlayaa. marka inuu asaga warbixintii inta naga qaado qolooyinkii aan ka cabanaynay dowlad goboleedka guddiyada doorashada u gudbiyo, halkaas uun bay la dhaafi weysay. anagana waxaan u haysanaa mas'uuliyadiisa in intaas ka badan tahay, awoodiisaba oo isticmaalaan aaminsanahay. ma aha anaga inta warbixin naga qaado oo na yiraahdo aniga waajibkaygii waa gutay, ma u malaynayo intaas inay tahay inta ay dadka Soomaaliyeed ka sugayaan ama laga filayo. marka hadda ma ka quusateen kalsoonidii aad ku qabteen ra'iisul wasaaraha? wallahi hadda wixii iska sii socdaan oo wax la joojinayo jirin oo waliba asagii uu leeyahay doorashada hala sii wado, haddii dowlad goboleedyada hadda bilaabay ee boob cad sameeyeen, kuwa kalena la yiraahdo bilaaba oo wax istaandara iyo wax sharciya habraaci doorashada aan lagu dhaqmaynin, doorasho dalka marka kama jirto ee dalka hal isboobaa ka jirta. hadda waxaad dalbateen in la joojiyo doorashada ka socota dalka. maxaa idin qorshaysan haddii doorashadu tabtaa ku socoto oo la soo doorto dowlad oo aydan qayb ka ahayn hanaanka lagu doortay? runtii annaga dee waxaan noo muuqato noo caddaatay waxa socdaahu inay qaranka iyo dadka Soomaaliyeed iyo dowladnimada iyo xasiloonidooda ay dhibaato ku yihiin. marka annaga waxaan leenahay doorasho la boobo resultigeeda ama natiijadeeda waa la garanayaa. haddii aysan dadka Soomaaliyeed iyo kuwa hadda talada hay u cadayna, ma fogee dowladda deriskeena inay fiiriyaan oo Itoobiya baa muhiim ah. dalka aad joogtay igala hadlaysa Kenya 2007 doorasho la booba ka dhacday, holaada ka dhacday adduunka ku soo baxo waa la xaliyay. maadaama annaga aan lahayn hay'ado oo awood leh dadku inay gacmahooda ku kala baxaan ay noqonayso, annagana taasaan diidanahay. intaana badan ee hadda midowga ku jirtaan dad dalka soo xukumay ama xilal waaweyn ka soo qabtaan isugu jirnaa, mas'uuliyaddaasaan u gudano. dadka Soomaaliyeed aan rabnaa inaan fursad u siino sidii xal loogu heli lahaa ama xal qaran loo heli lahaa, taladeeda inaan bilaawno haddii Ilaahay yiraahdo. xal qaran ayaad soo hadal qaaday, sidoo kale war-saxaafadeedkiina waxaad ku sheegteen in wadatashi aad la yeelanaysaan qaybaha kala duwan ee bulshada si loo helo xal qaran. marka muxuu yahay xalka qaran ee aad sheegaysaan inaad ka shaqayn doontaan? waa doctor dowladda horta muddaxileedkeedii sharciga ahay wuu dhammaaday. hal sane hadda waxay ku jirtaa overdue wax la yiraahdo ee sharci la'aan tahay. doorasho la isku raacsan yahay oo daafurnaan iyo leh hufnaan qabtaa la yiri way ku fashilmeen haddeertaan. dadka Soomaaliyeed marka ciddii doorasho daafurnaan leh oo maaragtay u qaban karta taladeedana u gooy karta inay ka tashadaan ayatiinkoodaas ayay anaga noogu muuqato runtii. maxaad ka leedahay dadka ooraahda xalka qaran u fasiran kara inaad ku goodinaysaan waxyaabo barbar socda hanaanka doorashada iyo hay-adaha dowladda? dadkan u day doonaa waxgaradka markaan isugu yeerno oo la tashano oo niraano dalkii doorasho kama dhicin, waxa socdaa waa boob, natiijadeena halkaan ay ku dhammaanaysaa. maxay yihiin khiyaaraadkii optionska? natiijadana ku dhammaatay in la isdilana ma filayo inayna dhihi doonaan, mana dhahayaan, suuragalna maaha taas. laakiin annaga waxaan aaminsanahay xalka inuu dadka Soomaaliyeed ku dhex jiro. annagana waxaan diyaar u nahay in dadka taas ku hogaamino oo aan la tashano oo wixii markaas xal u arkaan inaan annaga ku dhaaqno go'aankeeda gaarno. intii aysan dhibaatadu na soo gaarin aan iska moosno oo korkeena ku dumin dowladnimada. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah golaha midowga musharaxiinta ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo ii waramayay.